الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوة هكذا waxaan isugu nimi wadanka Belgium caasimadda labaad ee Antwerp beelweynta Nuur Axmed oo taageeraysa shirkii nabadeynta degmada Taleex iyadoo ay tacab badan galay oo ay iskugu yimaadeen beelweynta Daarood iyo Meheri aad iyo aad waxaan ugu hambaleynaynaa isimadii cuqaashii garboodkii iyo gudiyadii Nuur Axmed ee khaasatan gudaha iyo dibaddaba hawsha bilaabay markii dambana la kaashaday walaalahooda Dhubaante iyo Daarood aad iyo aad baan ugu hambaleynaynaa raggiisa uga shaqeeyay oo ugu horeeyo gudoomiyihii guddida Maxamed Cabdi Xuseen Suray oo ahaa gudoomiyihii guddida iyo odayaashii la shaqeynayay Daakir Maxamed Warsame waxaa kaloo taageersanahay caaqilkii guud ee beesha caaqil Ismaaciil Maxamed Cali Koore oo hawsha juhdi badan geliyay iyo caaqil Cabdirashiid Cali Xaaji Cali Ashire oo isna hawsha in badan juhdi geliyo ka shaqeeyay odayaashii kale la shaqeynayay caawa waxaan iskugu nimid oo jaaliyadii Belgium ka kooban oo odayaashii reeraha ah oo ay ka mid yihiin Shariif Yaasiin Xaaji Cali جامع هيبة محمد أقون ديرية أبشر حاجي ديرية عبد الرشيد عبد الفتاح بشير محمد عبد الرشيد هاف حسين عبد مرة يو مدول بابا وحنبليada iyo fikirkiisa uga dhiiban doono aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay hawshaas sida u dhacday ilaahay waxaan ka rajeynayaa hawshaas la xiray in ilaahay sideedana ugu dhameeyo hadda wixii ka dambeeyana ka tashano horumarka Taleex iyo Taleex oo mida Nuur Axmed oo mida khayrka laga shaqeeyo horumarka laga shaqeeyo iskuulada iyo caafimaadka iyo waxbarashada insha Allah jaaliyad ahaan ka qurbo joogaan aan ka qayb qaadano hawshaasna waxaan ku rajeynaynaa haddii ilaahay idmo sidii lagu talagalay ama sidii ay dadku ku go'aamiyeen in lagu xiro aan cid dambe ka daba hadlin cid dambe jabin insha Allah taala khayr baan rajeynayaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Shariif Yaasiin Xaaji Cali oo dhinacayga xiga Shariif ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سida uu sheegay Ibrahim Saciid Casayr waxaan nahay beelweynta Nuur Axmed Belgium iyo Holland qayb kamida Cabdi Fataax Bashiir wuxuu naga yimi isagoo Holland waxaan taageeraynaa arinta farxadda leh ee reereynta leh ee ka dhacday Taleex ah in dadka ehelka ah ee walaalaha ay nabadoobaan oo midoobaan oo isku tala noqdaan oo caqligu uu shaqeeyo baan taageeraynaa waana dhinac taaganahay waxaan leenahay arinta ilaahay ha inooga dhigo mid sii jirta oo guul ku dhamaata waxaan mahad gaar ah u celinaynaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawsha oo ay ka bilaabatay guddigii Nuur Axmed Garaad Saleemaan guddigii boqorka hogaaminayay Daarood iyo Meheri isugu jirtay dhammaantoodba waxaan leenahay ilaahay jisaayigeeda iyo wanaageeda ahaynu siiyo dadka reer Taleexna waxaan leeyahay dadka hawsha ka shaqeeyay waxa sharaf u ah oo ammaan u ah oo wanaag u ah in wixii ay inoo keeneen inoogu soo gurmadeen aynu yeelay aad ku mahadsantihiin oqaasha Ismaaciil Cali Koore iyo Shiina Cali Shariif ugu horeeyeen aad qaateen in la fuliyo oo laga rumeeyo oo laga dhabeeyo oo la geliyo juhdi badan oo dadka xumataliska aan la maqal oo dadka muxuu ahaay wixii dhintay waa dhinteen waxa nool in loo taliyo oo mustaqbalkii magaalada laga shaqeeyo oo Taleex caayaheedii laga shaqeeyo oo wanaageedii iyo jiritaankeedii iyo horumarkeedii iyo arrimaheedii bulshada laga shaqeeyo annaguna haddii ilaahay idmo waxaanu garab idinku nahay inaanu wixii laga qabanayo magaalada ay wax lagu wanaajinayo idinkala qayb qaadano waana mahadsantihiin haddii waxaan kusoo dhaweynaya jaamac Haybe Maxamed Aqoon بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu aad ugu faraxnay nabadgelyada lagaga heshiiyay degmada Taleex oo muddo hadeer sanado badan gaadhaysa magaaladaas ay laba qaybood kala ahayd waxaanu aad u sii amaanaynaa una ducaynaynaa dhammaan dadka intii ka shaqaysay dibad iyo gudaba waxaan gaar u sii amaanayaa dadka isimada uu ugu horeeyo boqor Burhaan boqor Muuse
oo qaarkood ka yimi dhul fog oo diyaarada ku yimi dadkaasu way idinka danqadeen waynaga danqadeen ehelnimaynoo ka danqadeen oo tollimaynoo ka danqadeen oo muslimnimaynoo ka danqadeen dadkaa tacabkoodii waxaad ku dadaashaan reer Taleexow inaan la khasaarayn oo loo abaalgudaa abaalkooduna waxa weeye wixii ay qabteen idinna aad ka aqbasheen oo aad adkaysaan ilaahayna la kaashataan waxaan kaloo mahad gaar u sii jeedinayaa guddiyadii Nuur Axmed ee hawshan ka soo shaqeeyey ee dhaqaalaha ku bixiyey ee maskaxda iyo fikirka ku bixiyey uu ugu horeeyo caaqil Ismaaciil Maxamed Cali Koore oo uga yimi meel fog iyo cuqaashi kale oo la kaashadayba waxaan idin leenahay idinkula dardaarmaynaa nabadgelyadu way dhalatay waa la gardaadiyey ilmuhu markuu dhasho waa la gardaadiyaa marka xigta waa la fadhi baraa marka xigta waa gurguurashadu bartaa taabkay qaadaba inaad adkaysaan oo la socotaan oo aydan halkaa kaga hadhin si ay u taaba gasho intaasaan idin faraynaa waana idin ducaynaynaa iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa deriya abshirxaaji deriya waa mahadsan tahay jaamac haybe sidii odayaashu ay sheegeen madashan caawa oo bishu ay tahay 9 waa bishii 12aad 2018 aanu isugu nimi magaalada labaad ee caasimada u ah wadanka Belgiumka ee Antwerpen annagoo ah bahweyntii Nuur Axmed ama reer Taleex annagoo aan isugu nimi sidii aanu ugu hambaliyeen lahayn guusha Taleex ka dhalatay aan u taageeri lahayn ka jaleedahan aan dib ugu yara noqday waxaan nahay Belgium iyo Holland halka raalli ka yara ahaada sida odayaashu ay sheegeen hambaliyadaas aan meesha isku nimi waxaanu isku garanay oo qof walba meesha fadhiyo uu aad ugu faraxsan yahay wanaaga gurigeeyagii ka dhacay ehelkayagii ay garteen tulweyne daarood ah ay noogu yimaadeen oo hogaaminayo boqor Burhaan horena uu meesha u joogay muddo 2 bilood ku dhawaad ah garaadkeena Garaad Saleebaan ilaahay raalli ka noqdee iyaguna ay gacmaha la hayeen caaqiladeena caaqil Ismaaciil iyo caaqil Shiine gudidii Nuur Axmed weyne oo iyaduna ay aad u gobol xaaray oo ay ku bixiyay dadaal badan odayaasha iyaguna gartay wanaaga iyo sharafta iyo ehelnimada iyo quruxda nabadu leedahay oo gacan qabtay dhalinyarada qaadatay dhammaan hooyooyinka cid walba waxaan leeyahay reer Taleex nabada sidii aynu u qaadanay oo tolku inoogu gartay innakuna aynu u fahnay macaankeeda inaynu labada gacmood ku qabsano inaynu ku dadaalno intaas aanto meesha aanu isugu nimi annana haddaanu nahay qurbo joogta reer Netherland iyo Belgium sidaas baanu idinku taageersanahay intii allaalaya intii meesha wax ka dhacdayna taariikhdayna waynu ka jaraynaa laynaguma soo hadal qaadi karo oo wax xun oo ina dhaafay ilaahayna dib inaguma soo celiyo inteena hadda qaadatay ee meesha joogto waa dhammaanteena aynu labada gacmood ku qabsano haddaynu xitaa dareenno dad xumaan wada ama gacmo shisheeye ha ahaadeen ama inta gudaheena ahaateeno dadku qaar baa caqli aan lahayn aynu iskugu tagno oo aynu gacan saarno oo aynu ka qabanno taas bay ballanteenu tahay waxaan ku wareejinayaa Cabdifataax Bashiir بسم الله الرحمن الرحيم runtii waan mahadcelinayaa raggayga horreeyay hadalkayga dhammaystiray arrinka Taleex ka dhacay runtii waanu bogaadinaynaa waanu soo dhaweynaynaa haddaan nahay jaaliyadaha Belgium iyo wadanka Netherlands waa arrin quruxdiisa leh waa arrin mudan in la xoojiyo oo la isgarab taago reer Taleex waxaan kula dardaarmayaa wixii dhacay caalamka hore waxa laga hayaa nin nool baan u taliyaa nin dhintay ma taliyo wixii dhintay wixii nool maanta sidii taladooda gacanta loogu dhigi lahaa oo loo maamuli lahaa
weliba loogu samayn lahaa mustaqbal dambe oo dheer wixii dhacayna looga gudbi lahaa dadkii arrinkan soo sameeyey oo kasoo shaqeeyena sida odayaasha ugu horeeya sheegeenba mahadcelintooda oo keliya waxa weeye in loogu abaalgudo nabadda oo la xejiyo oo la isgarab taago wixii ay soo sameeyeen oo ahaa wanaag mahadcelin kusoo koobi kari maayo raggii intaas arrinta ka shaqeeyey laakiin boqorkoo meel fog uga yimi boqor burhaam عقاش رير تلح جراد سليمان جراد محمد وجراد كي جود باشا runtii raggaasoo dhan waa mahadcelinaya waxaa keliya kusoo gabagabeynaya waxa weeye reer taleexow nabad baa idin dhalatay nabad muhiim idinka idin tahay horumarkiina idin tahay nabad baa naasi la noogalay nabaddu waa shay qaaliya gacanta ha lagu hayo oo ha lagu adkayo aad iyo aad baad mahadsantihi waxaan kusoo dhaweynaya cabdirashiid awaadan بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan ilaahay ugu xamdi naqanaa waaga cusub ee ka bariyay deegaanka Taleex marka labaad waxaan rabnaa inaan u mahad celiyo dadkii ka soo shaqeeyay juhdiga badan ku bixiyay waqtiga badan ku bixiyay u dhabar adeegay qaarkood danahoodii uga soo tegay in badan runtii ka shaqeynayay laabtana ka jeclaa in arrintaasi ay nabad ku dhamaato ayaanu si mug iyo miisaan lagu mahad celinayaa sidoo kale waxaan aad u bogaadinayaa guddidii daarood cuqaashii daarood salaadiintii daarood boqoradii daarood ee arrintaa ka qayb galay waqti badan lagu huray taasi waa taas waxaan leeyahay reer Taleex waa cusub baa idiin bariyey nabad baad go-aan ku gaadheen laakiin waxaa idinkana farxad idii ah ciddii hawshaa idinkala qayb qaadatayna farxad u ah idinka oo ka wada shaqeeya sidii nabaddaasi ay meesha ay maanta taagan tahay inay hore uga socoto mooyaane aysan dib ugu noqoteen waxaan leeyahay reer Taleex hantida ka dhaxaysay ee keliya waa nabad qof kastaaba uu garanayaa kalgacalkii reer Taleex isdhexgalkii ehelnimadii wanaagii lahayd muddadii ay jirtay dhibaatadu hawshii intay culays leekayd wixii la soo maray cid kasta waa fahansantay waxa maanta la qaatay waa wax taa lagaga bogsooday waxaa qof kasta mudan yahay inuu ka shaqeeyo in nabaddaasi ay taabo gasho oo halkaa maanta ay joogto aysan dib uga noqonin aad baan idin salaamayaa intaasaan doonaya hadalka inaan kusoo koobo waxaan kusoo dhaweynayaa حسين تفضل حسين. بسم الله الرحمن الرحيم أدبر ما سنتين وتلمانتين خيارة سوقتي مماشى أرنت الله يجي مماشى أنا هاد عاوة إن الله هم بليو لبقاديو أرنت كده على التلاح وضياش أنا هذا الكيجو الرئي مهم كيسينا شيء ما أنا كرفتون كده وتجا لكن وحنا ربعنا إرادة كلية nabad baa naas la nuugale khad cagaaran iyo kala qaybsanaana ruuxna faa'iido uguma jirto anigayga Xuseena oo aan wax badan tegin wadanka ayaa waxaan tagay 2016kii caruur walaalahay ayaa degan aabahay baa degan waa ii suurageli weyday inaan tago cabsi aan ka qabo colaadda meeshaas ka jirta faa'iido kuma jirto colaad ciil iyo cadaawayna dhalisaa alla ka baqa nabadda ay hesheen leedinka soo shaqeeyay ku gubaabta qaata haystana mag iyo macna darro waxba idin ma tarayso nolosha ilaashada nabadiina oo na mahadsantihiin dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.